xilli dambe oo caawa ah golaha midowga musharaxiinta ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku taariikhaysan 8 bisha 2021 oo ku eg xilhaynta sharciga ah ee madaxweyne Farmaajo. ciwaankiisu waxa uu yahay caddayn dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo buuxinta firaaqa dastuuriga ah ee xilka madaxweynenimo. maanta oo ay taariikhdu tahay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka 8 Febraayo 2021 waxaa ku eg muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. haddaba golaha midowga musharaxiinta markii uu arkay qodobada 91 iyo 96 ee dastuurka ku meel gaarka ah in muddada xilhaynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo. qodobada kale waxaa ku jira markuu arkay ayaa lagu sii yiri war-saxaafadeedka sidoo kale markuu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay in uu dalka ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeeda ku dhacda si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka. markuu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay hirgelinta heshiiskii doorasho ee Sebtembar 17 2020 isla markaana caqabad ku noqday xal u helidda tabashooyinka ku gadaaman hirgelinta heshiiskaas. markuu arkay inay lama huraan tahay in laga badbaadiyo dalka firaaq dastuuri ah sida ku cad qodobka 95 farqadiisa koobaad ee dastuurka ku meel gaarka ah kaas oo qeexaya banaanaanta xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sii haynta xilkiisa ilaa inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub. haddaba golaha midowga musharaxiintu wuxuu ku cadeynayaa mowqifkiisa ku aadan dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo buuxinta firaaq dastuuriga ah ee xilka madaxweynenimo qodobada soo socda. waxaa lagu yiri warka qodobo dhowr ah ayaa la soo saaray oo ilaa 6 ka kooban waxaana ay kala yihiin 1 laga bilaabo 8 Febraayo 2021 golaha midowga musharaxiinta uma aqoonsana Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 2 goluhu wuxuu ka soo horjeedaa muddo kororsi, caburin, gacan ka hadal iyo dib u dhac ku sii yimaada doorashada. 3 goluhu wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso gole qaran oo ku meel gaar ah oo ay xubno ka yihiin guddoomiyayaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, wakiilo ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada rayidka ah. golaha qaran waxa uu iska dhex dooranayaa guddoomiye xilkiisu meerto yahay. waa in guddoomiyaha golaha qaran uu shir isugu yeero madaxda dowlad goboleedyada, guddoomiyayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wakiilo ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka ah si loo dhammaystiro hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar ee 2020. in si degdeg ah oo aan dib u dhac lahayn loo soo saaro jadwalka doorasho oo la meel mariyo muddo cayiman oo ogolna lagu wada yahay. 4 goluhu waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday in uu dastuurka iyo sharciga dalka u hoggaansamo si uusan u lumin xuquuqda uu u leeyahay madaxweyne hore taas oo ah shardiga ku xiran in uu xilka si nabadgelyo ah u wareejiyo. 5 goluhu waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka in ay sharciga u hoggaansamaan. wuxuu goluhu uga digayaa in ay kasii amar qaataan shakhsiyaad muddaxiloodkooda dastuuriga ahi dhammaaday. hay-aduhu waa in ay daacad u noqdaan nidaamka dastuuriga ah, dowlad wanaagga iyo danta guud ee qaranka. 6 oo qodobka ugu dambeeya ah goluhu waxa uu ugu baaqayaa saamilayda siyaasadeed ee dalka, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay taageeraan go-aanka golaha si ay u fududaato hirgelinta heshiiska doorasho dalkana u helo xasilooni iyo xilliga kala guurka ah oo nabad ah. qodobkaasi waxa uu ugu dambeeyay war-saxaafadeedka ay soo saareen midowga musharaxiinta oo qodobo dhowr ah ka koobnaa. waa Cali Aadan Muumin.